صاحب عثمان الله نحرس صاحب كان مين ولا هو تجي يلا صاحب عثمان markaas askarta waxa ku dhahay walba meedkiis qaadano way diideen waxaan ku dhahay markaas qof waayay dadkii nin wax meesh joog asxaabta shaqada waxa ku dhahay ninka meeshu yaala way soo wada baxeen waan wali diiday markii dambe waxaan Allah waxa ku dhahay sida markii meedkiis ku heli karna jirkiis qaybihiisa oo qaybahan dhan uu ka fiicnaa qaybaha madaxa iyo waxyaabahaas wax ka gaarin kulanti wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan la joogaa Cusmaan oo ahaa qofkii ugu dambeeyay ee la joogay Allah u raxmaday walaalkeen suxufi sare Maxamed Ciise Koona ka hor inta aanu ku geeriyoon isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho qarxii labaad ee galabta ka dhacay Cusmaan saaxiib soo dhawow dabcan qofkii ugu dhawaa ee waxa tahay Maxamed Ciise Koona ee maanta la soo shaqeeyay isla mar ahaantaana ay wada joogeen xarunta kambaniga uu ka howlgalo inkastoo ka hor inta aanu qarxi dhicin aad ka imaateen howlo shaqo bal sidee ayuu Maxamed Ciise qarxas ugu geeriyooday waa maansantahay macali saaxiibkay Maxamed Ciise Koona naxariistii janno Allah ka waraabiyo martii la jecel yahay Allah ka dhigo qarxii koowaad markuu u dhacay waxa ku sugneen xarunta kooda sugneen anagu xarunta kooda sugna hal mar qaraxa wada yeeray alaabtii wixii dhan qolalkii aan ugu soo daatay oo meesha gudo ugu soo galay oo studio aniin ugu soo daato dhahay markaas kadib hal mar waxaan dhabaanay banaanka fiiriya Maxamed uu soo baxay wax oo hadda oo report uu soo baxayna ma ahayn banaanka iridu istaagsan oo baxay Cabdiqaadir okay asagana meesha ku dhaawacmay la joogay marka Cabdiqaadir uu ka dambeeyay koonaha horeeyay koonaha markiiba wuxuu tagay meeshuu tagay meesh markuu tagay qarxi koowaad dhacay markii jiwiga xoogaa caadi ahaa daqiiqada kadib markuu tagay qarxi labaad dhacay isla markiiba aniga wax ma ogeyn waxaan la soo sheegay Cabdiqaadir inuu dhaawac yahay anigoo dhaawac Cabdiqaadir iyo wixii ku mashquulsan okay dhaawaciis marka anagoo ku mashquulsan oo raadinayno waxa kadib waxaan soo xasuustay saaxiibkay Maxamed Ciise Koona gudaha ka fiiriyay waan ka waayay waa wacay telefoonkiisa meel heli karo ahaa systemka anteenadii dhan naga tagtay qadkaan ka wacay qadka muusan ku jirin isla markiiba waxaan ku wargeliyay asxaabta kale oo wada shaqeynay waxaan ku dhahay Cabdiqaadir haduu dhaawac yahay Maxamed Ciise Koona ayaa ka waramo haduu nala joogay markii waa la isweydiiyay ilaa markiisa daqiiqada kadib lambarka ugu celcelinay hal mar uu dhacay nina iga qabtay wuxuu ugu dhahay Cusmaan miyaha saaxiibka Allah u naxariisto ee laamigu yaala meedkiisa waa soo orday waa soo baxay laamiga imaaday askarta meesha joogo waxaan ku dhahay yar walaalkay meeshan yaalo meedkiisana waa kaas waa u jeedaa meesha caadi ugu jeeday markii wuxuu dhahay lama ogolo saraakiil meesha joogto xagga istaaga dhow waa la ogolaanay waa gartay marka ma aragtay muuqaalka jir ahaaneed Allah u raxmaday walaalkeen ayban xariistii janaka صاحب عثمان الله نحرس صاحب كان مين ولا هو تجي يلا صاحب عثمان الله نحرسته عثمان wuxuu ahaa qofkii ugu dhawaa ee la joogay Maxamed Ciise Koona Allah u raxmado saaxiibkeen markaas askarta waxa ku dhahay walba meedkiis qaadano way diideen waxaan ku dhahay markaas qof waayay dadkii nin wax meesh joog asxaabta shaqada waxa ku dhahay ninka meeshu yaala way soo wada baxeen waan wali diiday markii dambe waxaan Allah waxa ku dhahay sida markii meedkiis ku heli karna wax u gaaray markii jirkiisa ma aragteen jirkiis qaybihiisa oo qaybahan dhan uu ka fiicnaa qaybaha madaxa iyo waxyaabahaas wax ka gaarin